ضدك جعشها جنة الفردوس أجلس إله جنة الفردوس أجل إله مرحومك عبد الرحمن يوسف أحمد إله جنة الفردوس أجل إله جنة الفردوس أجل إله أفوذ قبرك إله قبرك وحاول دكتور نعيم إله قبرك وحاول دكتور روضة من رياض الجنة إله قبرك الباب جنة وغفر هذا بلغ هذا إله هو مؤمن إله نحرس إله نحرس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي وحب لنقاضي دمان وحنا ميت سعودة وقاده إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان وحي نسقون من تعسيدا سركال كيل أورنجري عبد الرحمن سعودي الله نحرسته إن قدمتي فاميلكي قدمتي عيدن كبوليسكا قدمتي دولة بوتلاند قدمتي أمد الصومالية دوران waxaan leenahay ilaahay janno ayaan u weydiinaynaa waxaan ka baryaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala maanta daar kale u galay daartaa u galay in daarul janna ilaahay uga dhigo innagana samir iyo iimaan ay inoogu horeeyaan hooyada iyo aabbaha iyo walaalaha iyo caa'ilada hoose ee qoyska uu ka tirsanaa intuu ifka joogay kana soo jeeday kulligiisii oo fara badan oo saraakiil badan oo joogta oo inala jooga idinka iyo anaga waa isu tacsiyeynayna waxaanu isaga tacsiyeynayna sarkaalka inaga dhintay waxaan leenahay samir iyo iimaan kulligan Allah inaga siiyo waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo awj khayl qabana Allah uu siiyo muxuu ahaayay qoyskii uu ka dhintay geeridu xaq weeye ninba siba u dhimanayaa ninba meeshuu ku dhimanaya Allah qadaray dad naftaa socota oo tagta meeshay ku dhimanayso sababta u dhimanaysana waa qorshaysan tahay oo hore bay u qorshaysnayd maxaa khaldan marka waxaan rajaynayaa inaynu u ducayno nin walba gaar ugu duceeyo nin walba gooni ugu duceeyo jamac ugu ducayno xusuusteena markuu soo galaba inaynu ilaahay janno uga barino innagana gadaashiis inaan ilaahay ina fidnayn baan rabbi subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marxuumkan macallinkiisaan ahaa intuu kuuliyadda ku jiray wuxuu ahaa nin sharaf badan nin qiimo badan akhlaaq wanaagsan layma hambayn waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa ehelkiisa khaasatan reerka uu ka dhashay ka sokow ciidanka booliisku isagaaba reera iyo ciidanka booliiska samir iyo iimaan Allah naga siiyo jannadii Allah ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midig Rahmaan wuxuu ahaa xubin ka tirsan ciidanka booliiska Puntland wuxuu ahaa dhalinyaradii sanadkii 2014 ku soo biiray ciidanka wuxuu ahaa xubin dhalinyaro ah oo ardadii waxbarasho jaamacadaha ka baxday ah wuxuu ahaa nin aan isnaqaanay oo waqti dheer aan meel goob wada joognay shaqo badan nala qabtay wuxuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan oo islaam ah ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdawsaha inuu ku irsaaqo marka ku xigta waxaan uga tacsiyeynaynaa qoyskii iyo eeladii iyo qaraabadii ciidanka booliiska Puntland iyo bulshooyinka Puntland oo u shaqeynayo dhan arrintan Cabdiraxmaan aaskiisa maanta aan joognaa wuxuu tusaale u yahay in geerideena iyo nolosheena aynu midnahay insha Allah sidaas aan dhamaanteen u rajaynayaa